madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada Maxaas gobolka Hiiraan. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa isagoo uu dardar gelinaya howlgallada lagu ciribtirayo qawaarijta waxa uu ku sugnaan doonaa halkan maalmaha soo socda isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacbiga ee deegaanadan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobolada dhexe muddo bil ah isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribtiri lahaa qawaarijta isla markaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle halkaas oo lagu soo gabagabayn doono dhawaan